waa mid ka mid ah fadeexooyinka isdaba joogga ah ee mar walba maamulka Hirshabelle laga soo tabiyo saakana war la yaab leh ayaa magaalada Jowhar laga soo tabiyay waa in Cali Goodlaw uu soo saaray waraaqad uu ku sheegay in uu xilkii uga qaaday qaar ka mid ah garsoorayaasha maamulka Hirshabelle ha yeeshee fadeexada ugu weyn garsoorayaashaasi waxaa ku jira qaar sanad ka hor xilkii iska casilay kuwo iyaguna dhowr maalmood iyo bilihii u dambeeyayba cabashadoodu ay baraha bulshada taallay iyagoo ka cabanaya xuquuq la'aan iyo sidoo kale in aysan wax madax bannaani ah u haysanin oo ay cadaalad u sameeyaan shaqada loogu talagalay in ay qabtaan ee xagga garsoorka. Soo dhawaada saaxiibayaal, bal waxaanu eegi doonaa fadeexadan iyo heerka ay la eg tahay iyo waxyaabaha la yaabka leh ee ku jira. maamulka Hirshabelle ee fadhigiisu yahay magaalada Jowhar gaar ahaan hogaamiyaha Hirshabelle Cali Goodlaw Xuseen ayaa saakay waxa uu soo saaray warqad uu xilkii uga qaaday 6 ka mid ah garsoorayaasha Hirshabelle. garsoorayaasha Hirshabelle oo iyagu dabcan markii horeba aan wax xuquuq ah ku haysanin meesha kana mid ahaa dadka Jowhar iska jooga wax camal ah aan qabanin wixii looga baahdo ama maamulku uu uga baahdo kaliya inay u saxiixaan ama ay mataqaanaa u jilaan meesha u joogay xuquuqna aanan ku qaadanaynin maalmihii la soo dhaafana cabashadooduba ay baraha bulshada taallay ayaa saakay la sheegay in xilkii laga qaaday. fadeexadaha isdaba joogga ah ee maalmihii la soo dhaafay la soo tabiyay waxaa ka mid ah in groupkii ay ku jireen garsoorayaashaasi laga saaray markii ay soo tabiyeen ama ay soo gudbiyeen cabasho la xiriirta inaysan wax xuquuq helin muddo sanad ah. mid ka mid ah garsoorayaasha Hirshabelle ee saakay xilka waa laga qaaday la soo tabiyay ayaa maalmo ka hor waxa uu si xor ah aragtidiisa uga dhiibtay garsoorka Hirshabelle isagoo cadeeyay in garsoorayaashu aysan wax xuquuq ah helin muddo sanad ah sidoo kalena aysan lahaynba wax madax bannaani ah laguna tilmaami karin garsoor sabab la xiriirta in aysan u madax bannaanayn shaqada ay qabanayaan oo ay tahay shaqo ay ugu adeegayaan oo kaliya hogaamiyaha ugu sareeya ee maamulka Hirshabelle taana aysan ka jirin wax cadaalad ah. sidoo kale garsoorayaasha xilka laga qaaday waxaa ka mid ah garsoore isagu 2024kii xilka iska casilay garsoorahaasi oo lagu magacaabo Maxamed Ibraahim Muuse. saakay ayuuna Cali Goodlaw waxa uu soo sheegay in uu xilkii ka qaaday. garsoorku waa meesha asaasiga ah ee maamul uu ka dhismo ama uu ka dumo haddii ay cadaalad darro ay jirto dabcan maamulkaasi ma sii jiri karo maadaama dadka wada dhistay ee ku heshiiyey cadaaladdu ay deeqdo. sidoo kale xuquuqda asaasiga ah ee garsoorayaashu ay leeyihiin waa mid muqadas ah sababtoo ah garsoore aan isagu wax xuquuq helin laga sugi maayo in uu wax cadaalad ah sameeyo waana mid ka mid ah fadeexooyinka maamulka Hirshabelle. dabcan UN-ka iyo beesha caalamka oo iyagu maalgeliya Hirshabelle ayaa ku qasba in maamulka uu maamul u ekaado garsoorna uu lahaado. 2023kii ayaa maamulka Hirshabelle waxay soo saareen warqad fursad shaqo ay ku qoran tahay oo garsoorayaal inay qaadanayaan taasoo lagu baahiyay warbaahinta iyo xataa telefishinka qaranka Soomaaliyeed la soo dhigay. hase yeeshee dhalinyaradii waxbaratay ee isdhahay fursadan ka faa'iideysta oo dalkiinana ugu shaqeeya idinkuna ku shaqeysta ee xilligaasi ku biiray ayaan wax xuquuq ah helin iyagoo u diiwaan gashanna UN-ka in ay xuquuqdoodii qaataan hase ahaatee isbaaro dhaxa ay jirto. ha yeeshee dadka maanta xilka laga qaatay awalba hore ayay uga tageen oo hadda maba ka tirsaneenba maxaa yeelay xuquuq la'aan ayayba markii horeba uga kala tageen qaarna sanado ka hor ayayba iska casileen.